lacagta markaad diraysaa account number baad gelinaysaa Soomaa imika xarfahaasaad gelinaysaa xarfaha xaraf kamid ah hadaad khaladid hada waa hal xaraf oo kamid ah hadaad lacagtaas way ku deysay addresska addressana hadaad ku dirtidna oo aan aad garanayna iyana lacagtaas way ku deysay marka lacag badan kuugu jirto aanad ku aaminayn abaad ka shakidid inaan secure ahayn waxa halka baad soo iibsanaysaa mudahaaga xagaasaad ku guranaysaa coinskaagi halkaasaad ku ilaashanaysaa qofkana ku dhacday miyaan oranayto lacag khaldan baa soo gashay qofkii ilaahay celi dee addresskana aad ku dirtay meel aad kala xidhiidhid ma leh because addresskii qof hebel baale ma bal ka faa'iido baad oranaysaa shan kalaad ku soo daraysaa jagaad iibinaysaa kadibna marka laga farmacaysto ayaa arkaan dad fara badan inay lacagtii ugu jirto millions of dollars ayaa la xirayaa wixiina meel loo raaco ma laha waxyaabaha ugu adag waxa kamid ah imika passwordkaas imika qof tusaalahaan aan markaan eegay imika aan dhageystay qof mutadayaca ama tusaalahaan aan wax badan xiftiin ma geli karaba in lala baxo markaa la gashto oo lacagtii laga qofkuna wala bixi karaa waa la bixi karaa furaha haysta hadhowna waliba tixraac inaad helin baa laga yaabaa ma heli kartid qofkii la baxay meeshuu la maray iyo meeshuu ku diray midna ma helis qofka $100 geliya 10% hadduu kor u kaco iyo qofka $100 geliya waa way dekal badan yihiin laakiin qofku inuu marka hore ku bilaabo lacag badan marka hore inuu lacag yar ku bilaabo kii loo qaatay ma qofka wax yar ku bilaabo kulanti aboon daawadayaal idil ahaantiin ba meel walba naga daawanaysaan maanta waxaanu idin wadnaa barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore oo aan isleeyahay wax badan baa ka faa'iidi doontaan waxaanu ka hadli doonaa dhaqaalaha iyo dunida casriga ah ee loo yaqaano ama lacagta digitalka ee cryptocurrency-ga oo ah meel ay dhalinyaro badan ay ka heleen fursad kuwa kalena ay weli doonayaan inay fahmaan cryptocurrency-ga iyo waxay tahay siday u shaqeyso si ay uga faa'iidaan dhaqaalo badan waxaan ka wareysan doonaa arrimaha jaamac difaac oo in badan ku dhex jiray isla markaana xogagaal u ah arrintan ku saabsan cryptocurrency-ga bal jaamac difaac marka hore waan kugu soo dhaweynayaa Shaahi TV ku soo dhawow bal ugu horeyn dadka haddaad warbixin ka siiso cryptocurrency-ga siday u shaqeyso aad baad mahadsantahay Axmed aad baan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo barnaamijkan Shaahi TV cryptocurrency waa digital currency amba lacag electroniga sida ay ku caan baxdayna bariyahan dambe adduunka dad badan ay ka sheekeeyaan marka caawa waxaan isku daynaa inaan ka sheekeyno wuxuu galo iyo wuxuu gado cryptocurrency marka cryptocurrency taariikh yar oo haddaan hordhaca ka bixiyo waxa la aasaasay 2009kii currency-gii ugu horeeyay la aasaasayna wuxuu ahaa Bitcoin markaasoo la soo saaray wax loo yaqaano white papers oo soo saaray group koox amba qof la yiraahdo waxa la yiraahdaa Satoshi Nakamoto marka wuxuu ku sharaxayeen sidoo uu shaqeeyo Bitcoin baa ah cryptocurrency-ga horeeyay la soo saaro marka ujeedada loo soo saaray Bitcoin waxay ahayd in badan ayaa adduunku wuxuu doonayay in laga guuro amba la sameeyo lacag ka duwan lacagtan aynu isticmaalo hadday dollar tahay hadday euro tahay amba currency-yada localka marka dad baa isweydiiyay engineero technology-ga dhaqaalayahano ma la heli karaa lacagtan ka duwan oo ka madax bannaan dawladaha bangiyada oo qofku isagu yeelan karo markuu doono diri karo isagu haysan karo aan wax macnaha xadidaad aan lahayn marka waxa ka dambeeyay fikirkaas ka dambeeyay in badan buu soo socday ilaa 1980kii waa la soo rogrogayay currency-yo baa jira la sameeyay aan laakiin guul gaarin waqtiyada kala duwan dad badani barnaamijka markay daawadaan kulley waxyaabo badan bay ka faa'iidi doonaan marka laga hadlayo cryptocurrency-ga bal ugu horeyn maadaama aad sharaxday cryptocurrency-gu wuxuu yahay iyo siduu u shaqeeyo maxay yihiin horta sababahan loo abuuray Bitcoin-ka iyo sidoo kale ama blockchain-ka technology-ga sababaha loo abuuray waxa weeye dad badan baa
ka biyo diiday habka dawladuhu maamulaan lacagta sidaan ku naqaano lacagta caadiga ah dawlad baa maamusha central bank taasaa markaa awood u leh xilligay soo daabacayso ciddii ku shaqaysanaysa cidday doonto ka joojin kartaa macnaha waa wax dawladi leedahay marka qoliyo jecel xorriyadda ayaa fikirkan la yimi waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka duulayeen waxay ahayd in dawladihii lacagihii mar walba iska soo daawacayaan kadibna lacaguhu value-goodu uu hoos u dhacayo in badan oo sixir barar ku imanayo marka waxaa la yidhi lacago ka madax bannaan dawladaha sidoo kale qofku isagu uu leeyahay isagu haysan karo waqtigu doono diri karo intuu doono diri karo aan samayno bitcoin baa ugu horreeyey marka conceptku markaa wuxuu yahay bitcoin-kaaga amba kribtadaada adigaa leh dawladi kuma maamulayso bangi uma baahnid inaad dhigatid oo uu ku ilaaliyo walletkaagaad ku haysanaysaa intaad doontid baad diri kartaa xilligaad doontid within minutes lacagta lagu dirayo macnaha ama fiiga lagu process garaynayo transactionkaasina waa mid aada uga hooseeya fiiyada bangiyada iyo waxaasi ay qaataan blockchain-ka waxa weeye nidaamka xisaabaadka bitcoin-ka markii la sameeyey bitcoin maadaama la yidhi uu ka madax bannaan yahay dawlad iyo bangi dee waxaa loo baahan yahay xisaabta cid ilaalisa ledgerkii oo iminka lacag dollara markaa isticmaalayso oo bangi kuu hayo hadduu 100,000 dollar kuu yaalo oo aad 10,000 kala baxdo bangigaa xisaabtaa haya axmed 100,000 baa u yaalay 10,000 buu kala baxay 90,000 baa u yaalay marka maadaama bitcoin uu yahay wax aan bangi hayn waxaa loo baahan yahay nidaam lagu maamulo nidaamkan lagu maamulo xisaabta ledgerka ah public ledgerka ayaa la yiraahdaa blockchain marka blockchain-ku wuxuu u shaqeeyaa kombiyuutarro adduunka oo dhan ah ayaa ka shaqeynaya si xisaabta ay noqoto xisaab saxan dadka kombiyuutarada haysta ka shaqeynayana waxaa la siinayaa reward oo markay xisaabta xidhaan let's say 10 minute u dambeeyay dadkii waxay soo dirdiray oo dhan xisaabtooda waa in la xidho axmed baa aniga ii soo diray mid kale u diraya si loo hubiyo lacagtani inaan anigu lacagtan haysto aan dirayo uu hebel inuu receive gareeyay waxa ka shaqeynaya kombiyuutarro mining sameynaya oo adduunka oo dhan oo ku xidhan kadib kombiyuutarkii ku guuleysta oo xisaabtaa xidha reward baa la siinayaa new crypto ayuu generate gareynayaa bitcoin oo lagu reward gareynayo sababtoo ah xisaabtii buu xidhay blockchain-kii buu ku daray xisaabtaasi waxba lagama bedeli karo waa irreversible oo waa very secure halka iminka xisaabaadka laga yaabi karo in la backdate gareeyo transactionkii bini aadamku wax ka bedeli karaan blockchain xisaabteedu hadday xidhanto dib looma furi karo cidina waxba kama bedeli karto marka habab noocaasa ayuu u shaqeeyaa oo ay blockchain-kuna waa waxa ka dhigaya inuu the most secure yahay oo aan waxba laga bedeli karin way iminka kombiyuutarada iyagu laftoodu xisaabtii kala goynaya haddii iminka tusaale ahaan dhowr kombiyuutaro kale ay ku guuleystaan ama ay xisaabta iyagu xidhaan waxaad sheegtay in lacag la siinayo ama bitcoin ay ku guuleysanayaan marka waxaan oo dhammi miyay u wada tartamayaan xisaabta mise markaa la wada eego kuwa ugu saxsan oo kale ayaa la qaadanaya xisaabtii dhammaantood way u tartamayaan kombiyuutaradana waxay ku shaqeeyaan waa high processors capacity-gooda aada u xoog wen yihiin oo qaaliya sidoo kale energy fara badan bay isticmaalaan markaa way u tartamayaan qaar cooperate gareynaya wada shaqeynayaana way jiraan oo si buul ah u wada shaqeynaya oo intii isku afkarataa haddii team wada shaqeynaya ay ku guuleystaan way qaybsanayaan rewardkii haddii mid ku guuleystana kaasaa qaadanaya rewardkii oo markaa kribtadan uu qaadanaya bitcoin-kan uu qaadanaya waa bitcoin cusub oo lasoo main gareeyay macnaha waa lasoo qoday oo waa lasoo saaray way iminka kombiyuutaradaas oo kale ma jiraan ama tusaale ahaan kombiyuutarada maxay ku xidhan yihiin qof hadduu maanta kombiyuutaradaas oo kale silaa iibso oo kribtadiina baro oo dabeetana ka qayb qaado inaad reward ka hesho ma samayn karaa cid waliba way samayn kartaa waxay ku xidhan tahay in qofku inuu kombiyuutarada capacity-ga badan iibsado inuu haysto energy jaban light jaban because wuxuu ku shaqeynayaa 24 saacadoodba dee bahalku ku shaqeynayaa dab fara badan buu isticmaalayaa si uu de uga faa'iidaysto transactionadan uu ugu tartamo xisaabta la saxayaana waa xisaab aada u adag oo haashin baa la yidhahdaa marka
cid waliba waa access bay leedahay software ku la soo degi computeradu setup garaysan uu ku shaqaysanaya laakiin wuxuu u baahan tahay qofka inuu capital ka haysto computerada ku soo iibsanayo sidoo kalena uu dab fiican haysanayo jaban iminka Ethiopia oo kale waa la isticmaalaa dalalka badana energy-goodu jaban yahay ama leerkoodu jaban yahay way ka faa'iideystaan oo isticmaalaan way iminka oo kale marka qofku lacagtan uu haystay caadiga ah ee uu isticmaalay bangiyada dhigano iyo bal hadda dib ugu yar noqdo iyo kriptada lafteedu maxay ku kala duwan yihiin kale waxay ku kala duwan yihiin lacagtan horta waxa koobaad ku kala duwan yihiin lacagta bangiyada la dhigto waa lacag dawladda leedahay oo bangigu lacag isagu sameeyo ma hayo dollarka kale de bangiyadu lacagta dollarka bay isticmaalaan dollarka waxa soo saaro daabaca oo ilaaliya forgery-ga ka ilaaliya dawladda Mareykanka meel kasta joogo oo de hay'adaha u qaabilsan tan way ka duwan tahay waa la sameeyay koox baa sameeysan hal qofkaas markaa faruhu kala baxay iminka dadka u dhaxaysaayo cid wax ka bedeli karta ma jirto 1.2 milyan oo bitcoin ayaa lagu aasaasay 1.2 milyan lama sii kordhin karo taas waxay ka dhigaysaa inaanu sixir barar ku dhicin lacagaha waxa qiimo rida markastoo la soo daabaco way qiimo dhacaan marka kani markasta wuxuu noqonayaa 1.2 milyan kama badna lama soo saari karo wax ka badan weligeed marka taas ka dhigaysa asset wax qiimo badan oo kooban marka taa uu kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay inaanay cid lahayn oo dadka oo dhan ka dhaxeeyo wuxuu kaga duwan yahay inuu global yahay iminka dollar haddaad istiraahdi dir waxa laga yaabaa inay waqti qaadato laakiin kan few minutes gudahood ayaad waxaad ku diri kartaa billions of dollars adigaan bangi isticmaalan ayaad cid kale ugu diri kartaa fiigeeduna uu aad u jaban yahay wuxuu kaga duwan yahay xagga security-ga amba anonymity wax la yiraahdo iminka haddaan anigu lacag diro oo qof kale u diro cidina ma ogaanayso sababtoo ah kuma xidhna identity-gaygu aniga aqoonsigaygu kuma xidhna wallet-kayga oo lacagtii jamac baa diray lama oranayo laakiin addresskii diray uun baa la arkaya waxyaabaha markaa dad badan ku jecel yihiin dadka qarinaya lacagaha ay dirayaan inaan xogtooda la ogaan inay diraan markii hore soo baxay bitcoin waxyaabaha dhiirigeliyay in la isticmaalo ayay ka mid ahayd in uu yahay very secure oo yahay ay qarsoon tahay aad diri kartid adigoon cidina ku ogaan marka waxyaabaha ay kaga duwan tahay lacagtan dollarka ee ay dadku isticmaalaan aad iyo way maxay yihiin siyaabaha ugu caansan ee kriptada loo maalgashado way halka dad badan baa aad u xiiseynaya oo oranaya bal kriptada haddii aan tusaale ahaan doonayno kale sidaan u maalgashan karnaa absolutely su'aal aad wanaagsan kriptada dhowr siyaabood baa dadku u maalgashadaan marka koobaad inay iibsadaan coinski kriptada way fara badan tahay bitcoin waa ka ugu horeeya waa ka ugu qaalisan iminka ee ugu sareeya laakiin way fara badan yihiin kumanaan baa la soo saaray marka qofkii coinkii buu iibsanayaa wuu haysanayaa macnaha wuxuu la sugayaa inuu kor ugu kaco si uu lacagtu geliyay lacag ka badan markuu u noqdo uu isaga iibiyo uu wax uga faa'iido habka waa habka ugu badan ee dadku u isticmaalaan habka la jiro trading oo isagu ka riski badan leverage trading baa la yiraahdaa marka dadka aad u fahansanay cilmiga trading-ka garanaya ayaa isagana isticmaala oo isagu qofku lacagtu haystay lacag yar buu gelin oo uu haystay lacag kale ku amahanaya leverage marka rewardkiisa amba wuxuu helayaa hadday saxnaato qaabkii amba wixii halkii uu suuqa u predict gareeyay lacag badan buu helayaa hadduu laakiin opposite ka noqdo dhinacii uu suuqa u maleynayay inuu kacayo dhinaca ka duwan uu kaco lacagtiisii wuu isaguna wuu ku khasaarayaa marka taasina waa habka labaad ee dadku u trade gareeyaan hab saddexaad baa jira la yiraahdo staking oo lacagtaadii kugu jirtay wallet-kaaga aad u dhiibaysid shirkado ku shaqeeya halka qoladii hore kombiyuutaradu ay tartamayeen lacag baa tartamaysa markan qayb ka mid ah kriptada oo staking baa la sameeyaa waxa la yiraahdaa proof of stake marka qofku lacagtiisii waa maalgashi oo kale isagana lacag baa uga soo noqonaysa because waa lagu shaqeynayaa transactionna lagu hubinayaa kadibna reward baa qofkaan uga soo noqonaysa lacagtiisii uu ku reward garan karaa kriptada wuu ballaaran yahay waxaa kaloo jira system dhan oo DeFi la yiraahdo decentralized finance lacag baad ka amaahan kartaa oo coinskaagii aad haysatay ayaad lacag ku amaahan kartaa
coinkii kuu maalgashanaa ee kuugu jiray systemka halkaad kala soo bixi lahayd haddaad u baahato waxaad ku amaahanaysaa leverage ahaan macnaha collateral macnaha waxaad u dhiganaysaa waxaa lagu haynayaa coinkaagii kadibna lacagtii baa lagu siinaya hadhowna waad iska soo celinaysa way dad badan waxay isweydiinayaan sida loo doorto ama coin sida loo doorto tusaale ahaan ama barajo wanaagsan loo maalgashado oo qofkii intuu ka fikiro uu odhan karo halkaas oo kale aad ka faa'iidi kartaa isagoo khasaaraha iska ilaalinaya absolutely horta cryptocurrency-gu marka loo eego wuu cusub yahay waxyaabo badan oo fara badan ay ku hoos jiraan oo dadku ku khasaari karaan oo iska aamisa marka qofku inuu marka koobaad xagga waxbarashada xoogga saaro ayaa ugu muhiimsan oo waxaan uu cilmi waqti badan geliyo si uu isaga ilaaliyo inuu ku khasaaro sababtoo ah suuqan cryptadu waa aad buu isbedbedel badan yahay waxaa laga yaabaa maalin gudaheed 20% inuu kor u kaco amba 20% hoos u dhaco waxaa laga yaabaa bil gudaheed inuu 60% hoos u dhaco amba kor u kaco marka waa very volatile baa leedahay dhaqdhaqaaqiisu aad buu u badan yahay waxaa laga yaabaa in $10,000 haddaad gashatay amba $100,000 inaad aragtid wii kadib $100,000 $50,000 maraya oo hoos u dhacay marka hadda qofkii aan ugu talagelin wuu naxayaa hadda wuu yaabayaa kadib wuu iska iibinayaa kadibna waxa dhacaysa inuu khasaaro wuu khasaaraya laakiin waxay u baahan tahay qofku inuu khatarta usoo bareero sidoo kale inuu waxaan fahansan yahay waa in normal ka tahay suuqan cryptada in fluctuation-kani oo marna dee khasaari karo marna faa'iidi karo marka khasaarahaasi haddaad spot trading wax la yidhaha samaynayso oo aad wixii maal gashanayso oo aad coinska haysanaysid kuma dhibayo 100,000 haddaad gashato aad aragtid isagoo 80,000 sii maraya ama 70,000 ha nixin dib uu soo noqonaya waa cycles ma ogti waxaa laga yaabaa suuqii inaad halkii ugu sarreysay ka gashay kadibna uu hoos kuugu dhaadhacay marka su-aashaadii ahayd sidee baa lagu ogaadaa projectka waa inaad ogaato horta wuxuu ku saabsan yahay maxaa ka dambeeya yaa wada dadkan wadaa hadduu weliba projectku cusub yahay dadkan wadaa dad la aamini kara ma yihiin shirkado ma yihiin dad shirkado backgaraynayaan projectka marka la launch gareeyey miyuu yahay wax ay iyagu markay launch gareeyeen lacagtoo dhan la bixi karaan immediately mise waa bahal ay ugu talagaleen inuu locked yahay oo la wadi karo marka every second kumanaan baa la launch gareeya loogu talagalay in dadka lagu dhaco laakiin dadka waxaan kula talin lahaa kuwa iska ilaaliya kuwii hore ee jiray ee la proof gareeyey ee sanadaha badan soo socday ee lacagta faraha badani ku jirto ee suuqooda ballaaran yahay ayay ka bilaabi karaan way kuwa sidii ku ogaan karaan waxay ku ogaanayaan markastoo ay galaan suuqa 10-ka ugu sarreeya 20-ka ugu sarreeya way arki karayaan oo ranking bay kala leeyihiin say u kala sarreeyaan waxay kaloo ogaan karaan xilligii la aasaasay abis and downskiisa markii ugu sarreysay meeshuu gaadhay markii ugu hooseysay meeshuu gaadhay waa inuu research badan qofku sameeyo waanu intuu yiraahdo cryptan gelaya markaba iska gelin oo aan lacagtiisa lagu dhicin way dad badan waxay sameeyeen imika dad badan oo ina daawan doonaa lacagihii daily life-kooda ahaa ama tusaale ahaan qofku intii raasamaalka ahayd uu hayay ayaaba laga yaabaa inuu ku bilaabo yidhaahdo mar haddii meeshiisan wax looga faa'iidayo inaad tan geliso in qofku lacagtiisii raasamaalka ahayd uu ku bilaabo cryptada uu dhex galo bal ka waran iyada cryptadu waxay leedahay khasaaro badan bay leedahay haddii qofku si khaldan u galo waxuu noloshiisa ku daberayona inuu geliyo maaha waxuu ka maarmi karo hadduu waayo u bareeray weeye inuu ku bilaabo sababtoo ah wixii horta cilmi uma lihi mar walba horta cilmiga ka horeeya research badan samee akhris badan samee dadka waxaan garanaya u daba fadhiiso oo la eeg kadib ku tijaabi wax yar lacag yaro xitaa haddii ay kaa khasaarto aan ku dhibaynin markaas si istaba kalsoonidaada iyo waxbarashadaada markay korto ugu soco laakiin mar ha iska gelin inta dee hantidaada hadda jagooyinka dhan soo iibso dam ku siiso waxaa laga yaabaa meel khaldan inaad gelisid oo ay wixii ay kaa khasaaraan marka kulama talinayo dhalinyarada iyo cid walbaba inay faraha la galaan iyagoo aan garanayn sidoo kale inay lacag aanay awoodin amba aanay ugu talagelin inay khasaaraan inay iska geliyaan way cryptocurrency-ga waxaa sheegtay in habab kala duwan uu qofku ku maalgashan karo lacagtiisa khasaaraha ay leeyihiin hababkaasu maxay noqon karaan horta habka ugu khasaaraha yari baa la odhan karaa waxa weeyaan inaad coinkii iibsatid oo adigu haysatid oo sugtid markuu kor u kacayo iyo markuu
hoos u dhiciisa aad la socotid marka markuu kor u kaco dhaafo dee intaad adigu ugu tala gashay iska iibsid kadib haddana sugtid inuu hoos u dhaco qaab noocaas oo kale ah kaas khasaarihiisu ma badna spot trading baa leedahay ka ugu khasaaraha badan waxa weeyaan leverage trading oo isagu highly speculative baa leedahay waxa weeye macnaha waa malayn waxaad malaynaysaa in maanta suuqu kor u kacayo male adigu aqoon ku dhisano intaad eegtid dee technicalka iyo waxyaabo isku taariikha aad eegtid aad soconaysa maanta suuqu 75 kun buu joogaa 80 kun buu buri gaadhaya marka lacagtaada dhigaysaa sidii aad malaynaysaa hadduu noqdo lacag baad ka faa'iidaysaa fiican laakiin opposite direction hadduu kugu dhaqaaqo lacagtaadu way ku deyso waxaad waad khasaartay marka taa chance kale ma sugaysid inuu hadduu soo kaco waxba kuuma yeelin meesha waa lagu kala baxay already waa sidii khamaarkii oo kale oo haddii lagaa guulaysto waa lagaa guulaystay halka tan kale ay kribtadaadii kuu taallo oo aad iska sugi karto sanadan hadduu doono intuu hoos u socdo sanadka dambe uu kor kugu soo kici karo oo ay tahay dee investment kuu taallo meesha waxaa kaloo khatara coinanka cusub waxyaaba badan leeyahay shit coins baa jira oo maalin walba waa la sameeyaa iminka waxaa laga yaabaa dhacdo iminka dhacday ayaa laga sameynaya amba qof baa soo yara caanbaxaya adduunka coin baa laga sameynaya kadib dadku way iibsadaan 90% dadka badan way ku khasaaraan laakiin qofkii coinka sameeyey amba shit coinkan sameeyey baa ku faa'iidaya labadeennana iminka sameyn karnaa coin immediately token kadibna magac baynu u bixinaynaa waynu xayeysiinaynaa dadkii baa iibsanaya ladise 100 kun markay iibsadaan ayaynu waxaan sameynaa wax la yidhaahdo rag bul lacagtii oo dhan waa loo baxaynaa 100 kunba ee la gashtay kadibna dadkii halkaasay ku qoda khasaarayaan inaguna dee waynu ka faa'iideen marka inta ugu badan ee coinska cusub ee la yidhaahdo yaryare cusubi sidaasay u badan yihiin marka kuwaasina waa kuwa ugu khasaaraha badan marka mararka qaar baa laga yaabaa dhalinyaradu intay galaan ay u shaqayso $10 oo kale ku dhufan markaasuu laga yaabo inuu $100 ka faa'iido laakiin haddana maalinta xigta waxa laga yaabaa $10 inuu ku khasaaro marka qaab noocaas iyaguna la isaga ilaaliya waxa jira scams iyagana aad u sareeyo dad ku dhacday dad dhulkeena Soomaalida oo la yiraahdo waxa crypto lagu maalgelinayaa maalin walba lacag inta leeg bad helaysaa kadibna maalmaha hore amba bilaa hore lacagtii way ku siinayaan let's say maalin walba $10 bad helaysaa ayaa lagu ballan qaadaya kadib $10 waa lagu siinaya xoogaa bay soconaysaa lacagtii 500 bal ka faa'iido baad oranaysaa 5 kalaad ku soo daraysaa jagaad iibinaysaa kadibna marka laga farmacaysto ayaa arkaan dad fara badan inay lacagtii ugu jirto millions of dollars ayaa la xiraya wixiina meel loo raaco ma laha dad badan bay ku dhacday dalka wayna soo noqnoqotaa marka taana in aad la ilaaliyo ay ku garanayaan qofku in waxaas uu yahay oo magaranaysa hadii la isku dhacayo kale hadii lagu ballan qaado faa'iido joogto ah taas waa tuuganimo because faa'iido joogto ah cidina isma ballan qaadi karto salaal gudaa waxaad faa'iideysaa bishii waxaad faa'iideysaa amba maalintii waxaad faa'iideysaa intaad maal gashin intaas maalin bil walba ku soo dhacay amba maalin walba hadii lagu yiraahdo ka carar waxaas waa scam weeyaan marka taa waa lagu gartaa waxa kale oo lagu garanayaa sanka laga gelinayo waa lagu market gareynaya aniga qof baa la recruit gareynaya qofkaas la oranaya dadka soo market gareey isaga commission baa lagu siinaya kaana commission kala lagu siinaya hadda qof keento waxa lagu oranayaa aduguna waxaad helaysaa maalin walba xasa ku soo dhacaya marka waxa la yiraahdaa pyramid scheme dadna dad kale badan wadiga keenay kadibna magaaladiiba si yaro fudud ayay isku soo wada gelaysaa because qof waliba commission buu ka helay dhaqaale badan baa ka soo baxay dhaqaale badan baa ka soo baxay laakiin aakhirka waxa la sameynaya waa la dhacaya dadkii way miningku muxuu yahay sidee isaga miningka laftiisa lacag looga sameeyo miningku waa taan ka hadlaynay kombiyuutaradan proof gareynaya amba validate gareynaya blockchain-ka transactions ka dhacay waxaan maadaama bangi xisaabtii hayn xisaabtii waxa haya dadkan kombiyuutarada isticmaalaya waa decentralized marka dadkaasi markay xisaabtii saxaan verify gareeyaan in xisaabtan saxan tahay transactions kan dhacay inay saxan yihiin baa la siinaya reward let's say imika rewardka ugu dambeeya la bixiya waa 3 bitcoin point something computerkii ku guuleystay imika 10 kan mid la soo dhaafay hadii inuu computerkan ku guuleysanahay inaynu xisaabtaas saxno waxaanu qaadan lahayn let's say 80 kun buu maanta maraya 3 xabo min 80 kuna
waay ayaynu qaadan lahayn Waa. 240 kun inta filaya waay ayaad la kacaysa marka taasaa ah mininka Waa. habka mininka loo mine gareeyo sax cryptada markaa qof quri uu ku guuleysan karaa kooxna way ku guuleysan Qof kartaa quri 240 kun mar keliya ha waay laakiin waxaa dhinac yaala Waa. kombiyuutaradu waa qaali waay energy-gii iyo dabkii ku shaqeynayana waa qaali Waa. marka waa iska business caadi ah. Waxa laga yaabaa mararka qaarna in wax ka faa'iido mararka qaar inay break even noqdo mararka qaar in ay isleekaadaan electricity-gu bixiyay iyo wixii waay waxaa jira waxa la yidhaahdo proof of work waa maxay sidoo kale maxaa bitcoin-ka ka dhiga uga digaya inuu isticmaalo bitcoin-ku waa kii u horreeyey waay marka wuxuu qaatay waxa la yidhaahdo proof of work waay in transactionska ay dadkaasi kombiyuutaradaasi verify gareeyaan si decentralized uu noqdo oo aanu qof keliya ugu xidhnaa marka taasaa waa system bitcoin qaatay sax waa system marka waxaa lagu dhaliilaa energy fara badan buu isticmaalayaa adduunku ay ku dhaliilaan dadka taageeran waxay leeyihiin energy-ga badan oo isticmaalaya iyo shaqada badan oo laga qabanayo ayaaba value iyo qiimo u sii yeelaysa bitcoin-kii marka taa opposite-keedana waxaa jira proof of stake marka waxaa la yidhi proof of work-gani wuu yaro culus yahay waay waqtigu qaadanayaa energy-gu isticmaalayaana wuu badan yahay environment-iga adduunka uma baahna wax ka bedelan waa in la helo sax marka halkii kombiyuutarro badan la isticmaalayay iminka lacag proof of stake waxa weeyaan lacagtaa la isku dardaraya marka coinan isticmaalaa jira sax lacagtaada adigu dhiganaysa anigu lacagteedan dhiganaya kombiyuutaradii weli meesha way ku jiraan laakiin lacagtu waxa weeyaan collateral si aanad u khiyaameen systemka waay oo aanad u validate gareyn transaction khaldan lacag baa lagaa dhigaya haddaad transaction khaldan is tiraahdo validate garee penalty baa kugu dhacayo lacagtii baa lagaa goosanaya sax marka waxaad ku khasban tahay inaad Sida saxda u si dhaqanto. saxa u shaqaysid waay marka kaasina saasuu kaga duwan yahay labadoodu proof of work iyo proof of stake maxay kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin midna energy buu isticmaalaya iyo kombiyuutarro lacag badana sax midna lacag baa la isticmaalaya oo lacagtaada dhiganaysa way intaynan weli sharaxaadda dhaadheer usii gelin oo kale dad badan waxay soonayaan new jaamac isagu intee leeg buu ku jiray weli dhaqaalo fiican oo la yidhaahdo dadka tusaale u noqon kara ma ka faa'iiday dhalinyarada laftooda ma kula talin lahaa inay cryptocurrency-ga ay soo galaan anigu horta waxaan ku jiray muddo kooban baa ku jiray waa das ilaa 2023 ayaan si toosa xagga cryptada waa involve ugu noqday markii hore forex-ka iyo waxyaabahaasaan ku jiray dhalinyaradu ma kula talin lahayd waa dhalinyaradu waan kula talin lahaa iyo cid walba oo fahmaysa inay bartaan baan kula talin lahaa inay Sax. iska soo galaan kulama taliyaan maadaama uu yahay crypto system dadka soomaalida ah ee bangiyadu ka xidhan yihiin ee adduunka blogga kaga jira waa u sahlaya inay adduunka ku xidhmaan oo wax maal gashadaan waxaan kula talin lahaa inay soo galaan laakiin waa inay wax bartaan maadaama khatartiisu badan tahay tallaabada koowaad ee ay qaadayaan qof walba waa inuu wax barto because systemkan khatarihiisaa badan in lacagtaadi aad ku weydid baa badan baa dhici karta siyaabihii aynu ka sheekeynaynay waxaa kaloo dhici karta siyaabo kaloo ka duwan oo aqoon darro kuu geeni karto inaad Waa. lacagtaada ku weydid waa maxaa ka mid iminka lacagtaada markaad diraysid let's say inaad dirtid lacag electronic inuu isticmaalo waa haddaad nambarka khalado oo ay qof kale kaaga dhacdo waa amba qofkii baad la hadlo odhan war lacagta ii soo celi waa amba shirkaddaa kaaga soo celinaysa sax tani ma jirto waa because shirkad wixii maamushaa ma jirto wixii kaa khaldamaa waa way ku daayeen hadduu adres saxan ku dhacona kaasaa qaatay waa hadduu adresku kaa khaldamona lacagtii saasay ku baabaado cidina ma qofkanay ku helayso dhacday miyaan odhanayto lacag khaldan baa kusoo gashay qofkii lahaa u celi dee adreskan aad ku dirtay Waa. meelaad kala xidhiidhid ma leh because adreskii qof hebel baale maaha kuma qornaba kuma qorna sax adresku waxa weeyaan xarfo iyo xisaab laysku daray Waa. oo si randomly systemku u generate Waa. gareeyay kaasaad copy garaynaysaa halkii account number lacagta markaad diraysa account number baad gelaysaa soo ma Waa. iminka xarfahaasaad gelinaysaa xarfaha xaraf ka mid ah haddaad khaladid waa hadda waa hal xaraf hal xaraf oo ka mid ah haddaad lacagtaas way ku daysay waa adreska adres ahayn haddaad ku dirtidna oo aanad dee garanayna Waa. iyana lacagtaas way ku daysay way siduu qofku arrintaa uga badbaadi karaaba wuxuu ka badbaadi karaa qofku inuu aad isaga ilaaliyo adreskan wax ku dirayo iska hubiyo waa double check triple check uu sameeyo waa xaraf xaraf uu eego because waad soo koobi garanaysaa waad gelinaysaa waa markaa waxay u baahan tahay qof attentionkiisu aada u soo jeeyo oo Way. waxaan fahansan aniga igaasa iga dhacday in waa lacag iga khaldanto waa oo adres
marna address khaldan baan ku diray waay marna lacagtii baan si khaldan u diray labadiiba waay lacagteedii waan ku waayay ciidan la hadli karo odhan karo ii soo celiya ma jirto waay marka waa very interesting marka lacagtii masaasi kugu deysay lacagtaasi kugu deynaysa ood ka samraysa way waxa jira tusaale ahaan qofku inuu leeyahay password oo kale sax inuu samaysto in password dee loo helo passwordkiisaas oo kale sidoo qofka sida ugu habboon ee ku xiftii karo waa sidee hadduu si passwordkaas lumo maxaa dhacaya waa su-aal aad u wanaagsan waay cryptocurrency inaad haysatid laba system baad u mari kartaa waay midi waa habka loogu talagalay ee loo abuuray waay oo ah inaan adiga iyo aanad cid kale kuu dhaxayn aad adigu haysatid coinskaaga sax waxaad ku haysanaysaana waxa weeyaan wallet baad samaysanaysaa wallet decentralized wallet baa la yihahdaa walletkaas wuxuu ku siinayaa fure waay amba waa 12 xaraf amba waa 24 xaraf waay waad qoranaysaa dee haddaad xusuus fiican tahayna waad xasuusanaysaa marka walletkii maaha number waxa weeyaan waa kelmado waay soomaali ahaan oo kale waxay noqon kartaa faras geed wax kelmado dhammaystiran weeyaan waay marka adaa lagaa rabaa inaad ilaashatid as long as aad haysatid phraseskaga amba passwordskaaga waxba kaama lumayan meeshaad doontid adduunka aad joogtid cryptadaadii waad access garayn kartaa because blockchainka ayay ku dhex jirtaa oo cidina kaama taaban karto hadday kuwaas kaa lumaan waay waad isdayseen waxaa dhacda iminka ka hor markii cryptada cusbeyd waay ninbaa miner buu ahaa waay marka bitcoin ilaa 8,000 oo xaba ah waay ayaa walletkiisa ku jirtay furihiisii markaa wuxuu ku store garaystay oo ku haystay phraseskiisii waa passwordkii hard drive waay hard drive baa ka lumay 8,000 bitcoin waay iminka waxay marayaan 800 milyan oo dollar waay ninkaa waxaa ka maqan 800 milyan oo dollar waay oo baalkaa ku lumay oo soo cad waay hadduu furayaashiisii maanta helo 8 milyan oo dollar halkaasuu kala baxayaa oo cidi kama laha waay ninkii weli wuu raadiyaa hard drive-kii waay marka hard drive-kii si khaldan baa qashinka loogu daray sax gurigiisa inta laga qaaday waay dee wuxuu ka raadiyaa ninkii qashinkuu meeraystaayo Inuu hard ilaahay drive-kii markuu wuu weli soo deedey laakiin hadduu bahalkaa helo unba xal leeyahy laakiin hadduu helo ninkaas taajir buu ninkaas dee waa billionaire buu ku dhow yahay waay haddii kalena saasay ku daayay waay hadduu qofku tusaale ahaan mobilkiisa oo kale maadaama wixii aan la xiftiyi karin waa xuruuf kala duwan iyo alphabet iyo raacsan yihiin hab kaloo ku magaranaysaa ilaashan karaa ma jiraa laba hab baa lagu ilaashan karaa waay waxaa la yihahdaa hot wallet iyo cold wallet waxay kala yihiin walletkaagu waxa weeyaan meesha ay kugu jirtay cryptadaadu waay khasab dee marka hore internetku ku jira waay marka kaa internetka ku jira horta dee bahalkii waad ka qoranaysaa meel baad ku xifdeenaysaa sax laakiin weli internetkiibuu ku jira maxaa dhici kara computerkaaga ama mobilekaaga inta la haagareeyo waay amba qof kaa qaato in lala baxo oo markaa la gashto oo lacagtii laga oo qofkuna ula bixi karaya anyway waa la bixi karaa furaa haysta hadhowna weliba tixraa inaad helin baa laga yaaba ma heli kartid qofkii la Meeluu ku baxay meeshuu diray. la maray iyo meeshuu ku diray midna heli maysid midna ma helaysid waay waad ka samraysaa marka habkaasi waa hab waa riski sax laakiin waa hab habka labaad waxa weeye cold wallet baa la yihahdaa waay furahaagii completely internetka waad ka saaraysa hard drive-ka kugu jiraa amba flash oo kale waay maaha flashyada kuna naqaano waa kuwa loo sameeyey waay halkaasuu kugu jirayaa halkaasaad ka access garaynaysaa coinskaaga iyo cryptadaadii waay ledger baa la yihahdaa waa shirkado badan baa bixiya servicekaana marka dee marka lacag badani kugu jirto waay aanad ku aamineyn amba aad ka shakidid inaanay secure ahayn bahalka yar baad soo iibsanaysaa midhahaagii xaggaasaad ku guranaysaa coinskaagii halkaasaad ku ilaashanaysaa marka flashtan oo ilaashan dee meel kalena waa inuu kugu qoran yahay meelo badanna waa inuu kugu kala yaalo kala duwan dee gurigiiba gurigiiba daafadaad ka raadinaysaa aniga waxaa igu dhacday drive walletkaygii ay igu qornay waay ayaa qashinka la raaciyey waay iyadoo weliba lacag igu jirto waay laakiin maxaan haystay walletkii baan weli access u lahaa sax kadibna waan ka wareejiyey lacagtii marka waxaa kugu dhici karta meeshaad ku qortay xitaa haddaad meel yaro dayacan dhigto in la tuuro waraaqihii inba waxay kuugu qornaayeen sax qashinka la raaciyay inta waraaqa la moodo waay kadibna- haddaad maalinta qashinka gudaafada ku qaado kudaafadaad wareegaysaa waay haddii aanad
haddaad meel kale haddaanad degto xafida dabcan way dad badani barnaamijkan inay ka faa'iidayaan baan filaya waayo waxyaabaha ugu adag waxaa kamid imika passwordkaas imika qof tusaale ahaan anu markaan eegay imika aan dhageystay qof mutadayaca ama tusaale ahaan aan wax badan xiftiin aad iyo ma geli karaba cripto ma currency geli karo ha. maba geli karo qof baa lagu talagalay qofku inuu soo jeedo inuu soo jeedo ha amba waa inuu fahansan yahay dee qofku ka waran haddaanu qofku fahansanayn intuu wallet iska furto $100 iskaga shubto walletkiisii uu dayaco furayaashii amba ay ka lumaan kadibna uu ka xidhmo applicationkii sax dee lacagtaas way ku daysay marka kriptadu dad badani sidan ay ka dhigayaan ee ah inay iska fudud hel iska soo galo oo dadka dee ay ku soo jiidayaan waa way ka ballaarantay waxbarashadeeda horeysa waa si aad khasaaraheeda qofka maanta istiraad tusaale ahaan cripto currency ka magarasa ka dee cilmigeeda baro ku takhasus intee ku qaadan kartaa wallahi dee qof walba iyo fahankiisa ku xidhan tahay laakiin Sax. cilmigiina internetku ka buuxaa waa wuu ka baran karaa weliba dee inkasta in English u badan yihiin qofku qof kale wuu ka baran karaa oo dee waxaan garanaya inuu sharaxo sax oo isaguna aad u fahansan oo uu dee because inagu aad baynu ugu fiicannahay electronic moneyga waynu isticmaalnaa sax marka waxaan aaminsanahay waqtina way u baahan tahay wayna waa loo baahan yahay way waxaa jira waxa la yidhaha staking stakingku waa maxay sidoo kale sidee buu ay dadku uga helaan isaga laftiisa rewardka staking waxa weeye lacagtaadii aad haysatay ee kuu maalgashanayd waay ayaad haddana mar labaad kasii faa'iidaysanaysaayoo waxaad kula shuraakoobaysaa qolyahan ka shaqeynaya blockchainka waay verify garanaya transactionska waay marka lacagtaadii baad oranaysaa lase 10,000 baa kugu jira 5,000 baan staking u diraya lacagtii baa lagaa qaadan way kuu socotaa faa'iidadeedii sax waxna waa lagu siinayaa reward ah oo maadaama dee wax ku faa'iidayaan iyagii markay shaqada qabtaan rewardkaas wax kaa soo gaadhaya marka stakingkuna waa qaab noocaas way dadkan imika tusaale ahaan bangiyada lacagta dhigtaa imika waxaa laga yaabaa mid baa 200,000 milyan hadduu doono ugu jira qofkaas oo kale hadduu xaggan dhigto oo kale ma uga faa'iido badan tahay lacagta bangiga u taalo kale iska taalaan waxba aanu ku qabanayn waa su-aal aad u wanaagsan waay lacagtu bangiga markay iska taalo inta badan faa'iido adiga kuma soo saarayso waay qiimahooduna hoosunbuu usii dhacaya because inflationki sixir barar baa jira marka qofku lacag ay dhala hadduu iska haysto uuna u bareeray inuu dee uu yahay qof riski tolerant ah amba dee u Riski bareeri taker ah. kara riski taker ah sax lacagtiisa qayb ka mid a crypto gashanaya because si yaroo fudud waay ayaa laga yaabaa maalintii 10% inay faa'iido ugu kori karto 20% ay faa'iido ugu samayn karto sax marka dee ninkii 100,000 haystay kaashka fiican haystay waxaa laga yaabaa within few weeks inuu 10,000 20,000 ka sameeyo oo ka faa'iido bato Ka lacagtii iska faa'iido- tahay ma way iska taalay taas sax taad qof kalunba ku shaqaysanaya way maxay yihiin bal maanta khataraha ugu waaweyn ee kriptadu ay waajahdo weliba imika marketka khataraha ugu waaweyn waxa weeyaan in scammerskaasi ay badan Sax. yihiin because dad baa ku shaqaysta waxaana dadka lacagtooda ay scam dhacaan. gareeyaan ay ku dhacaan sax marka inaad iska haddii aad hawshan ku jirto inaad hubisid meelaha aad gelaysid linki walba inaad iska taaban scamkuna inta badan wuxuu ka dhacaa khalad bini aadan ka yimi aduu kaa dhacaya sax amba waxbaa lagu soo diraya email khaldan kadibna waad iskaga dhufanaysaa kadibna waa waxaagii baa la guranayaa marka qofku haddii mobilkiisa ay ugu jirto crypto waa inaa iska ilaaliyo wax uu hubo mooye wax kaleba linkiyada waa inaanu furin marka waa inuu aada isaga ilaaliyo tan kale ee ah scamiskan kale ee ah dee laysla yaqaanay ah waxbaanu ku siinaynaa amba lacag baa markaba aad helaysaa lacagtaada nasi taana waa inuu aada isaga ilaaliyo labadaasaa ugu xoog weyn saan aaminsanahay way waxaa jira waxa la yidhaha stable icons maxay yihiin sidoo kale maxaa iyaga laftooda ka dhigaya muhiim stake waxa stable coins stable coins sax stable coinsku waa qeyb aada u muhiima oo ka mid a cryptocurrency-ga waay stable coin waxa weeyaan coin isagu aan dhaqdhaqaaqin isagoo kor nooma kacayo hoos nooma degayo halkaas u taagnaanaya wuxuu ku xidhan yahay dollarka sax marka coinkani waxa weeye wuxuu breach u yahay markaad iminka maanta doonaysa inaad maal gashato bitcoin waay dollar to bitcoin uma maalgashanaysid waay marka hore lacagtaadi dollarkeed waxaad u bedelaysaa stable coin marka stable coinka heshid kadib ayaad iibsanaysaa cryptadii kale sax marka isagu waa breachka isku xidhaya lacagtii caadiga ahayd
iyo cryptadii si kalena waa looga faa'iidaystaa iminka dalal badan oo Africa ka mid ah maadaama bankinku uu ku yar yahay waxayba sameeyeen stable coinkii uu ka faastsan yahay inaad lacag kale ka dirtid xawaaladaha iyo meelaha kale haddaad China wax ka soo iibsanaysid stable coin baad u diraysaa kadibna qofkii kale wuu receive garayn immediately adigoon bangi u baahanba ayaad sidaa hawshaadii ay kugu qabsamaysaa marka dadka aan bangiyada access ka u lahayn businessyada yaryar ayaa isticmaala kasoo qaad $2,000 amba $5,000 qofka wax ku diranaya ma doonayo inuu bangi iyo waxa maro supplierkii kale ee jooga China hadday isfahansan yihiin adresskiisu buu soo diraya 5,000 buu diray fiiguna aad buu uga jaban yahay waxa laga yaabaa inuu sanaati uu ku noqdo lacagtaas ku diro lacagtiina immediately bay gaaraysaa within minutes marka qaabab noocaas ayaa isaga looga faa'iideystaa way dad badan oo daawanaya tolo su'aasha way isweydiinayaan iyaguna inay isweydiinayaan ma filaya dad badan wax isweydiinaya tusaalahaan kriptada maxaa marna sare u qaadaya marna hoos u dhigaya kriptada horta caan bay ku tahay wax la yiraahdo volatility-ga kor u kac iyo hoos u dhac aad u socda waxa laga yaabaa maalintii inuu 1 to 10% inuu marna kor u kici karo marna hoos u kici karo waana waxa faa'iidada keenaya oo bahalka haduu meel iska taagan yahay dee waxba lagama faa'iideen marka quruxda ku jirtaaba horta waa volatility-ga marka dadka qaarna dee risk badan bay u arkaan qaarna way u soo bareerayaan marka volatility-ga waxa sameeya waxa keenayo bahalkani horta wararkiisa muxuu ku saabsan yahay let's say imika war fiican baa ka soo dhacay adduunkii maadaama wixii kriptada cusub tahay in kriptadii dalal badan ay aqbaleen markii markii dalal badan amba shirkado badan ay aqbaleen waxyaabaha kor u qaaday oo ayuu ka mid yahay oo bitcoin isagoo maraya wax senti ka yar haddana maanta uu marayo 80,000 markii ugu sareysana uu gaaray 126,000 waxaa ka mid ah warar fiican oo iska soo daba dhacay mararka qaar baa war fiican imanaya kadib warkaasi wuxuu noqonayaa mid positive saameyn positive ku yeesha oo kor u qaada mararka qaar baa mid negative imanaya amba dal baa joojinaya amba meel baa la dhacaya exchange ah hoos buu dhacaya waxa kale oo saameeya dadka adaptation-ka siday u demandkiisa dalabkii demandkii maanta haddii dad badan doonayaan inay bitcoin iibsadaan qiimihiisu kor buu sii kacaya hadday dad badan doonayaan inay iska iibiyaan hoos buu dhacaya marka waxyaabo badan oo ayaa ka mid ah saameeya sax way waxa jira wax la yiraahdo NFTs iyo tusaale ahaan DeFi oo kale maxay yihiin maxaana ka dhigay iyaga laftooda kuwo muhiim ah NFT waxa weeyaan wax la yiraahdo non-fungible tokens waxa weeyaan waxa ku base garaysan tahay blockchain-ku crypto kaliya loogama faa'iideysto laakiin waxyaabo fara badan ayuu muhiim u yahay marka mid ka mid ah waxyaabihii lagu sameeyay NFT baa ka mid ah NFT waxa weeyaan imika sawirkaaga oo kale ayaad NFT u bedelaysaa haddaad kadib sawirkaaga marka xuquuqdiisii iyo wixiisii oo dhan ayuu ku ilaalinaya kadibna sawirkaaga waad iibin kartaa amba art amba something kadib iibkaas wuxuu transfer garoobaya qofkii ka iibsaday marka 2020kii iyo 2020 ayay aad suuqaasi billions of dollars laga sameeyay oo waxyaaba artisa iyo lagu iibin jiray NFT-ga marka adigu waxa ka dhigan tahay wax real world ka jira let's say gurigaaga oo kale ayaad ka dhigaysaa NFT token baad ka dhigaysaa markaas ku iibinaysaa internetka oo qofkii ka iibsanaya oo ka transfer garaysanaya marka blockchain-kana saamaxaya iminka blockchain-ka waxyaabaha uu wax ka tari karo waxa ka mid ah ownership-ka dhulka iminka dhulkeena lagu dawaqsan yahay maalin mulkiyadihii iyo wixii isku khalkhalsan yihiin haddii blockchain la geliyo oo qof waliba dhulkiisa halkaa la geliyo kadibna ay proof of work la geliyo oo Axmed marka dhulkiisa la diiwaan geliyo waxa ka marxaati noqonaya kombiyuutaradaas oo dhan blockchain-ka ku shaqeynaya wadina kaga murmaysa hadhow Axmed haduu iibinayona qofkii kale ka iibiyay ayuu u wareegaya marka sequence baa jiraya ownership-kii ah oo aan khaldamayno la foojar gareyn kareen oo mulkiyad kale oo khaldan amba nootaaya khaldan aan loo samaysan karayn marka blockchain-ku faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay caalamka
oo siyaabo kala fara badan baa imika loo isticmaalaa aan cryptada ahayn. DeFi waxa weeye decentralized finance, halkii bangiyada ayay ku jiraan aba nidaamada maaliyadda, laakiin dadkii baa waxaan share garaynaya lacag baad amaahanaysaa, waa lagu amaahin, staking baad ku samaynaysaa, macnaha adigoon bangi u baahan ayay ka dhex dhacaysaa waxaan oo dhami systemadan cryptada iyo blockchainka dhexdiisa. marka waxaa dhici karta imika lacagtaadii inaad cid amaahiso oo faa'iido aad ku heshid, waxaa dhici karta inaad adigu lacag amaahatid oo aad ku amaahatid coinskaagii aad haysatid, si aanad kaagii coinskaagii u isticmaalin, kadibna aad hadhow iska celisid. marka waa system dhan oo lamida kii bangiyada iyo financialkii oo cryptada uu leeyahay oo isaguna la isticmaalo. way Somaliland oo kale waxaa ka jira imika tusaale ahaan applicationo badan baa jira. ma jira application cryptocurrency isticmaala ama Bitcoin-ka? waxaan arkayay lagu soo kordhiyey laba bangiba waan arkay isticmaalaya, Salam Bank oo ka jira Soomaaliya iyo Wafi walletkeeduna isaguna cryptada lagu soo kordhiyey, oo isaguna waxa u fududeynaysaa qofkii inuu heli karo lacagtiisii saadka ugu jirtay uu da crypto zero easy ugu bedelan karo, hadhowna uu saad ugu bedelan karo. marka waa tallaabo wanaagsan ay qaaday shirkaddu oo u fududeynaysa dadkii inay isticmaalaan cryptadii. way cryptadu weli ma waxay ku jirtaa tusaale ahaan early stage-kii mise dadku way ka daaheen oo kale? may weli waa bilow, because 2009 baa coinkii horeysay la launch gareeyay oo Bitcoin ah. waxa intaa muddada kooban ayuu jirayba, halka dee financial maaliyadaha kale traditionalka ay dee boqolaal sannadood soo jireen. marka waxaan noo karnaa waa bilow, dadkeena Soomaalidana faa'iido badan buu leeyahay, maadaama bangiyada caalamka iyo bangiyada accesskeenu u leenahay ay yar tahay, inta u lehina ay shuruudo badan looga baahan yahay. halkan waa meel ay ka heli karaan finance nidaam maaliyadeed oo qof waliba qayb ka noqon karo. waxyaabaha xitaa looga faa'iideysan karo waxaa ka mid ah in lacagaha la isugu diri karo. oo Axmed imika dadka ugu badan qurba jooga ee lacagta dira xitaa cryptocurrency way ku soo diri karaan, way ka fududahay, waqtigu ka yar yahay, fiigii inuu ka jaban yahay. marka waa wax aad fursad badan oo laga faa'iideysan karo. ganacsiga loo isticmaali karaa oo adduunkaadu wax kaga soo iibsan karta. way sidee qofkii imika tusaale ahaan dibadda jooga marka loo soo diro lacagtii sidee buu ku heli karaa? wuxuu ka helayaa qofku waa inuu leeyahay walletku marka laba nooc buu noqonayaa. mid waa mid shirkadaa leh, waxa weeyaan centralized exchange baa la yidhahdaa. marka shirkadaasaad ka furanaysaa, marka shirkaddu iyadu way ku diiwaan gelinaysaa, ay baasaboorkaagii waa lagu hubinayaa qof jira inaad tahay, dalkaad ka timi, waxaas oo dhan. kadibna iyagaa ku haynaya cryptadaad markaad iibsatid, furayaashii khatarka ahaa iyagaa haynaya, adigu password iyo emailkaaga waxaagaad ilaashanaysaa. marka taas ka dhigan tahay haddii ay iyaga wax ku dhacaan oo iyadu kacaan sida dhacda, in aad halkaa problem geli kartid oo aad lacagtaadii ku waayi kartid. laakiin waxaad ka badbaadaysaa tii ahayd inay culayska adiga ku saarnaa ee ahaa inaad furayaashii ilaashato oo iyaga ku haya. passwordska caadi baad haysanaysaa, passwordkaas hadduu kaa lumana iyaga qudhoodu waad isverify garaynaysaa, waa lagu siinayaa. walletska kale laakiin waa kuwa decentralizedka ah. marka qofku labada mid ku leeyahayba, qofka xaggaa jooga hadduu crypto isticmaalo wuu usoo diri karayaa instantly, isagoo aan bangi iyo xawaalad u baahan ayuu usoo tuuraya 100, 200, 500, fiiguna wuu ka yaryahay. kadibna wuxuu kala baxayaa, maadaama imika dee ay inoo fududeeyeen shirkadihii waaweynaa, shirkadaheennan uu kala bixi karaa. way maanta tusaale ahaan qofka doonaya inuu cryptada soo galo ka faa'iido magarasa ku takhasuso, maxaad kula talida odhan lahayd waxyaabaha talo u siin lahayd? waxyaabaha horta waxa koowaad aan kula talin lahaa waxaa weeye inuu qofku wax barto oo cryptada barto, maadaama wuxuu nidaam technologiyad ku salaysan yahay, khatarana leeyahay, inuu horta barto oo aanu la hiyikicin oo la odhan halkana lacag badan laga sameeyey iminkaba lacagtaada geli, laakiin si degan uu u barto wixii. taa markuu sameeyo qofku wax wuu ka keeni karaa, oo qofku waxbuu baranayaa dhinacyadan badan wuu ka faa'iideysan karaa. laakiin qofku isagoo aan waxba garanayn oo aan cilmi u lahayn hadduu is yiraahdo iska soo gal, dee waa khataro, waa ku wixiisiiba ku waayi karaa.
wuuna ku khasaari karaa. Marka number 1 kaan waxaan xoog ka saari lahaa inay wax bartaan, markay wax bartaanna ay maalgashadaan coinanka, ayna u maalgashadaan qaabka ugu safesan ee ah spot tradingka. coins sharaftoodu fiican tahay, suuqoodu fiican yahay inay maalgashadaan, kadibna ay u samraan, because dadku inta badan waxay jecel yihiin si degdeg inay ku taajiraan, si degdegana loogama taajirayo meeshan. way dhici jirta baryihii hore waxaan cusbaayeen in si degdega looga taajiri jiray, laakiin imika wixii wuxuu noqday mainstream, qofkii u samra ee dee baa wax ka keeni kara. marka riyadan ah amba fikirkan ah criptan ka taajiraya horta iska saar, maskaxdaada geli waxaan inay maalgashi caadiya tahay, waqti u baahan tahay, lacagtan aad gelinaysaana lacagiba tay ka badan tahay baa hadhow ay dee ka faa'iido badanaysa. oo waa sidii waa ganacsi un adigu ganacsi amba maalgashigii stockska iyo waxyaabahaas, lacag baa lacag badan geliyo wax badan buu ayuu dee ka faa'iidaya. iminka qofka $100 geliya 10% hadduu kor u kaco iyo qofka dee $100 geliya way dee kala badan yihiin. laakiin qofku inuu marka hore ku bilaabo lacag badan, marka hore inuu lacag yar ku bilaabo kii loo qaatay, ma qofka wax yar ku bilaabo lacag uu ka maarmi karo hadduu khaldo. waxaa dhici karta isagoo markuu isku bedbedelayay inuuba khaldo amba adresskii amba uu khaldo wax, marka lacagtiisa kugu deyso. marka wax yar oo kooban ku bilaabo aad ku berberatay, haddii khaldanta aad ka sabri karto kale ka sabri karto aana dee soo deldelin. haddaad 10 kun intaad jaga soo iibisay amba wax badan soo iibisay amba ganacsi soo iibisay aad gelisid oo maalintii koobaad baad adresskii khalado, dee waa disaster weeyaan. aad iyo aad baad umahadsan tahay. barnaamijka waxaan is leeyahay daawadayaasha barnaamijkan daawada wax badan bay ka faa'iideen, weliba dad badan oo kribtada inay ka qayb noqdaan raadinayay oo doonayay meel ay tusaale ahaan ka dhageystaan, ka daawadaan, ka bartaan. aad baan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga annagoo Shaahi TV isku duuban. insha allah waxaan rajeynayaa barnaamijka in daawadayaal badani ay ka faa'iideysan doonaan. barnaamijka aniga Axmed Daahir idin la socodsiinayay, aniga iyo Jaamac waxaan kaga tegaynaa. salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.